أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام. وأنا محمد عبد الله وما كان idinku soo gudbin doona cashar aad muhiim u ah. casharkaasoo aan idinku tusi doono sidee loo sameeyaa tire balance design-kiisa adigoo isticmaalaya Excel. So first si aad u sameyso waxay ma doontaa selkan dan waxaad ku qori doontaa company-ga magaciisa, tusaale ahaan Mohan Company. So markaa intaad sameyso kadib waxay la gareyn doontaa ilaa intaad u baahan tahay. Dan waxaad dhigi doontaa Merge Center. Dan waxaad dhigi doontaa bold iga dhig farta iyo weynee oo kale. Waxay iga dhigtaa Algerian oo kale. Dan kadib waxay ma doontaa halkan waxaad ku qori doontaa waxa aad sameyn rabto waa maxay. Waa tire balance. So halkan igu qor marka. So markaa qorto kadib waxay la gareyn doontaa idan markaa aad kadib waxaad dhigi doontaa Merge Center dan farta iyo weynee oo kale. waxay iga dhigtaa bold oo kale. So noocan iga dhig oo kale. So markaad sameyso kadib waxay ma doontaa halkan amsalkan waxaa ku qori doontaa period-ka ayaa ku qori doontaa, tusaale ahaan oo kale January 1st oo kale 2018 oo kale to January 31st 2018. So markaas qod kadib waxaad garan doontaa dan waxaad dhigi doontaa Merge Center. Dan waxaad dhigi doontaa bel iga dhig farta xogo yar iyo weynee oo kale. So markaa intaad sameyso kadib waxay ma doontaa selkan waxaad ku qori doontaa account. So waxaad dhigi doontaa tab halkan waxaad ku qori doontaa debit tab. So halkan waxaad ku qori doontaa credit. So markaa intaad sameyso kadib waxaad sameyn doontaa godkaan account-kan ku qorayo waa weyneysana. Okay, markaa intaas sameyso kadib waxaad sameyn doonaa waxaa la garan doonaa waxaan dhigi doonaa bold iga dhig farta iyo weynee oo kale. Dan sidoo kale waxaan sameynayaa color iyo wheel inaan dhaho kale. So color waa lagu wheel soma. Dan waxaan sameyn doonaa waxaa la garan doonaa dan waxaan dhigi doonaa border iyo wheel. All borders ayaan ka dooran doonaa. So border waa igu sameyn soma. So border marka uu sameeyay kadib waxaa kaloo ku xigi doona maadaama salalkan kale aan u baahnayn waxaan sameyn doonaa waa iska hard gareyn doonaa. waxaan ma doonaa salkan dan waxaan dhigi doonaa control shift right arrow. Dan kadib markay falaartaasi dhanka hoos aadaysa ay soo muuqato oo ujeedaan soo mujeed waxaan dhigi doonaa right click dan waxaan dhigi doonaa hide. So waa iga qariyso ma soo ujeedaan. So ujeeda sama waa igu qariyay. So kale salalkan kale daa u baadan waa iska qarin karaa. Salalkan kale daa u baahdo waan qarin karaa. waxaan dhigi doonaa oo kaliya waxaan imaan doonaa halkan view ay qoran tahay grid line aan eject ka qaadi doonaa. So ujeeda sama. So halkan waxaan ku qori doonaa marka account-adi. So kale halkan waxaan ku qori doonaa debit-ki. So kale halkan waxaan ku qori doonaa credit amount-ki. So sidaas ayuu tire balance igu diyaarsan yahay. So casharkeeni halkaas ayuu ku egyahay. waxaan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.